xagaagan dalalka Mareykanka, Mexico iyo Canada lagu qaban doona koobka adduunka 2026 haddii xaalku caadi sii ahaado kaasoo bilaabmi doona 11 Juun socon doona ilaa 19 bisha July ama Luulyo. waana sida aad la wada socotaan aan ka marnayn Soomaaliya oo markii ugu horeysay sanadkan uu taariikhda ku matali doono garsoore Umar Cabdulqaadir Cartan. haddaba waa imisa kharashka ay helayaan garsooreyaasha dhexdhexaadin doona ciyaarahaasi caalamiga ah. mushaharka iyo gunooyinka garsooreyaashan la siin doono ayaa ka koobnaan doona wax loo yaqaano kuwa asaasiga ah ee base fee ama flat fee iyo kuwa kale ee gunooyinka ah ama bandhiga la xiriira oo dheerad ahaan garsoore kasta uga heli doono ciyaaraha uu qabto. ka hor inta aanu tartanku bilaabmin dhammaan garsooreyaasha waxaa la siin doonaa agab isboorti oo qaali ah oo ay ka howlgalaan sida kabo, jaakado, funaanado, matantayaal iyo waxyaabo kale oo ay farsamayso shirkadda Jarmalka ah ee Adidas. sidoo kale waxaa la guddoonsiin doonaa saacad qaali ah oo ku kacaysa ilaa $5,000 Mareykanka ah oo ay farsamayso shirkadda Hublot waddan ah shirkad Swiss ah oo farsamaysa saacadaha qaaliga ah. Adidas iyo Hublot labaduba waxay heshiis iyo dhax kula jiraan FIFA. dhanka mushaharka markaanu eegno garsooreyaasha khibradda badan ayaa qaadan doona inta u dhaxaysa $50,000 ilaa $100,000 Mareykanka ah taasoo aadba ku xirnaan doonta ciyaaraha ay qabtaan inta uu tartanku socdo. waana inta u dheer gunooyin iyo premiyo bandhiga la xiriirta oo ka bilaabmaysa $3,000 ilaa $5,000 kulan kasta oo ay qabtaan. waxaa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mandi Palace Restaurant oo aad kaga maqsuudi doonto cunto macaan iyo muunadba leh menus kala duwan iyo madal tolmoon haddii aad mudato meesha ay ku taal oo aad shaashada ka milicsan karto. sidoo kale garsooreyaasha kaaliyaasha ah oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya muuqaalada kaaliya garsooraha ee loo yaqaano VAR ayaa iyaguna qaadan doona mushahar ka yar midkaan soo carbawnay oo u dhaxeeya $20,000 ilaa $25,000 Mareykanka ah oo sidoo kale lagu biiriyay gurno iyo premium bandhiga la xiriirta oo ka bilaabmaysa $2,000 kulankii. garsoorihii loo xushay inuu dhexdhexaadiyo ciyaaraha bugbaxda ah oo isku noqonaya rubuc dhamaadka, afar dhamaadka iyo ilaa dhamaadka ayaa heli doona lacag dheeraad ah oo ah $10,000 Mareykanka ah kulankiiba. guud ahaana garsoorihii wada qabta dhammaanba ciyaaraha Manher Group ilaa dhamaadka ee jeebka ku ridan doona adduun lacageed oo gaaraya wax ka badan $100,000 Mareykanka ah marka lagu daro kunada iyo premiyada uu heli karo. waxaana weli xusin in garsoore kasta ay inta u dheer tahay hoteelo 5 xidigood ah oo leh suits lagu raaxaysto, tigidho diyaaradeed oo qaali ah iyo dabcan la socoshada caafimaadkooda, cuntooyinkooda, gaadiidkooda iyo wixii la mid ah. FIFA ayaa 104 kulan oo ka dhacaya koobka adduunka waxay u xushay 52 garsoore iyo 88 kaaliye garsoore oo dheer yihiin 30 ku shaqeeya aaladda VAR inta uu socdo tartankan koobka adduunka 2026. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.